daawanayay laba dhacdaba wax ka soo qaad bay lahaayeen aadna waan wax mahay waxaan maqlay madaxweynihii cusbaa oo tababar uga furay hudheel halkaa ku yaal magaalada galbeedkeeda wasiiradii cusbaa waxa kaloon maqlay madaxweynaha oo qada sharafeed ku maamusay wasiiradii hore laba madaxweyne oo laba munaasabadood midna goobjoog ahaa midna aanu goobjoog ahayn mid Muuse Biixi baa joogay oo waa loo wada dhammaa waynu arkaynay middan kale ninkii hadalka furay wuxuu yidhi anigoo madaxweynaha ka wakiila madaxweynuhu wuxuu martiqaadka u fidiyey malaa ugu yaraan ilaa 4-5 goor ayuu ereyga madaxweyne ku celiyey taasina waxay la muuqataa inay tahay intihaak على سيادة الرئيسين كي هراء يكن دنبوا وحوي أحمد محمد محمود سيرانيو هالجمودا جي صاحب كي ما هم مدحوينها جمهورية سومالان وكذا العي وهانشري وحقود العي مدحوينه هراء جمهورية سومالان وسدح مرحلات مروى مرشح مروى مدحوينه هراء ودرت له قالوي قف كليا ودن كيستو داهر ريالوها وكيل بعد Muuse Biixi iyo Axmed marka la isaga dhigo Axmed baa sareeyo oo Axmed waa ninka saddex marxaladood ka soo gudbay Muuse tii labaad buu ku jiraa markaynu u soo noqono qadadii waxa la yiri wasiiradii hore oo qadeynaya tiraba waa dhowr jeer intuu ereygaas aan maqlaya waxaan maqlay madaxweynaha oo shirkii ugu dambeeyay golaha wasiirada qabtay madaxweynaha oo sii sagootiyay wasiiradiisii hore waxaan maqlayaa madaxweynaha oo qada u fidiyay wasiiradii hore aniga waxay la tahay madaxweynuhu ilaan xil wareejin buu sameeyay oo isagoo miirkiisa iyo maankiisa qaba ayuu xilkii saacada laga bilaabo waxaan ku wareejiyay madaxweynaha cusub ee la doortay dabeedna kol hadduu isaguna tagay iyaguna way tageen hadalladan meesha ka maqlayay waxaan maqlayay qabo oo leh waa inaynu isku duubnaanaa waa inaynu isku xidhnaanaa waxaan maqlayay mid kale oo lahaa qoladiina nisaaq walba wax xishoonaysaan madaxweynuhu waa inuu inoo yeedhaa inoo yimaadaa anu garan maayo dee dhaqankaasi meelu ka jiro marka erey kaftana Cabdilaahi Dheera yidhi oo Cabdilaahi Dheera wuxuu ka kaftamay inna kaamil koodhskii waa loo yeedhayaa ma la laha ingiriisku kaamil koodhka intuu qoryi ka dhigay 2 bilood oo mushaharaysiisay sidoo Cabdilaahi sheegay ayuu waa leedin yeedhi doonaa kala taga taanu ma qabo Axmed Muuse Biixi inuu Siraanyo ku yiri qoladan intuu abaalmarin siiyay waa leedin yeedhi doonaa kala taga oo waxay sugaan anu ma garanayo xilkii uu dhamaaday haddii dadaalkii badnaayay ay sameeyeen intii ay xilka hayeen haddii ay inoogu darayaan inay imikana inoo furaan jabhadda wasiiradii jabay jawjab hadday inoo furayaan oo taasi ay ictiraafkeena soo dadejinayso waynu u mahadnaqaynaa haddii kale waxaanu leenahay madaxweynuhu maalintii ugu dambeysay xilka wareejiyay waxay ugu dambeysay isagoo lugeynaya oo gurigiisa ku sii socda oo ay dadkuna hareera socdaan fariin bay ahayd annagu si aan u akhrinay fariin toban bay ahayd waxa weeye xilkii waan wareejiyay meeshiina waan ka tegey waanigaa ka lugeeyay aanoo faramarin baan ka tegey saasaanu u qaadanay hadduu madaxweynahoodii sidaa sameeyey ha akhriyaanoo si annaga si aan u akhriyayna si ka fiican ha u akhriyaan xilkii uu dhamaaday saasaanu ku dhamaaday sabab la isu urursadana annagu garan